cali cabdi ciise waa 22 jir sanad ka hor ayuu ka jabay lugta midig kabay dhaqameed lagu sameeyay ayaa horseeday dhibaato weyn oo soo gaadhay lugtiisa waxaana dhamaaday dhammaan hilibkii lugta lafihiina qaar ayaa ka soo daatay halkii ay ku jireen cali waxa la geeyay magaalada Nairobi waxaana lugtiisa la geliyay biraha aad aragtaan si laftu u kabanto hase ahaatee lagama saarin birihii xilligii loo qabtay sababtu waa dhaqaale la'aan qoyskoodu waa danyar iska daa inay dhakhtar ku celiyaan uma hayaan wixii uu cuni lahaa ama agabkii lagu dhayi lahaa nabaradiisa dhabarka iyo boodada waxa kaga yaala nabaro kale hilib ayaa looga gooyay lugta si loogu buuxiyo hilibkii lugta ka dhamaaday laakiin waxaan sanad kadib wali iyana bogsan nabaradaasi oo dhibaato kale ku haya odayaal ka mid ah eheladiisa oo xaaladiisa la daala dhacay sanadkii la soo dhaafay ayaa dadka muxsiniinta ah ee Soomaaliyeed caawimo ka dalbanaya meel walba waa la soo mariyay waxa la wixii dadka iyaga meesha jooga aanu awoodaynay iyo meeshii aanu la tiigsan karinay iyo dadkii aanu wax ka raadin karnay oo aanu ka raadinay maanta maxaan rabaa marxaladiisu meel adag bay taagan tahay waxa weeyaan biraha ku jira waad aragtaan waxa weeyaan dhibtii hore gaadhay birahana haddii laba qadar dib kale ku sii ah wixii lagaga bixin lahaa baa la leeyahay waxaanu idinka codsanaynaa dadkeena islaamka ah ee muslimada aanu ku walaalownay meel kastoo aad joogtaan wixiina arkaya oo arrintaa maxuu ahay danqayso oo islaamnimo ku jirto ninka maxuu raada haddii laba qadarkeeda gurmad degdega u samaysaan aad soo caawisaan baanu idinka codsanaynaa idinkana wixii aad maxuu raada bixisaan ajar iyo xasanaad ilaahay idinka siiyo wixii aad la hadhaan ilaahay idin barakeeyo waxa weeyaan waan idinku celcelinaynaa waxa weeyaan ninka meel kastoo aan la soo mari lahayn iyo wixii awood ahaa iyo wixii ehel ahaa iyo wixii maxuu raada aqoon ahaa way soo dhamaa islaamkan u bandhignay marka annaga awoodayadii intaas ay ku dhamaatay waxaanu u bandhignay dadka islaamka ah ee islaamnimada iyo diinta ku walaalooday waxaanu rabnaa ninka maxuu radaa inaad haddii laba qadarkeeda islaamkoow aad u gargaartaan wixii aad u qaban kartaan aad u qabataan ilaah baa deeq leh ilaah baa wax bixiya ah laakiin dadku istamar dhaamaa hagar dheer cid walba way garanaysaa waa xiro qaxooti haddii islaamka qaxootiga degan ee hagar dheerana waa dad aanu gacanta waxba ku haysan dadaalna aanu u yarayn oo qof walba wuxuu awoodo ayuu bixinaya mid bur bixiyo mid bariis bixiyo mid maaragtay wixii gacantiisa soo gashay bixiyo wax ka badan oo meesha lagu hayo malaha waxaanu muslimka caalamka ee maanta ina daawanayo ama aanu maaragtay u bandhigaynaa wiilkaas yar sidaas aad arkaysaan muuqaalkiisa uu yahay iyo araggiisa ee aanu jeenanna loo haynin ee aanu kab dhammaystiranna haysanin birihii lagu xiray wax looga bixiyo oo lagu celiyo oo Nairobi aanan la haynin gurigiina uu jiifi la'yahay oo xanuun iyo kaar iyo dhib uu ku xanuunsan yahay dadkii kor joogayna ay yihiin dad aanu gacanta waxba ku haynin oo ah xero qaxooti waxay joogaan islaamku waxaan u bandhigaynaa in la soo caawiyo oo nala soo caawiyo oo wax loo qabto oo islaamnimo wax loogu qabto oo sida ugu dhaqsaha badan muddadii birta ku jirtay waa la dhaafay celintii wax lagu celiyo lama hayo wixii doktoradii iyo wixii ku taray wixii lagu bixin lahaa lama hayo wixii lagu soo celin lahaa lama hayo wixii jeenan lagu siin lahaa lama hayo qof walba oo awooda inuu garab istaago wiilka yar oo ku dhibaataysan xirada qaxootiga waxa laga codsanayaa inuu il naxariiseed ku eego kana qayb qaato sidii dhakhtar loo geyn lahaa oo ugu yaraan looga saari lahaa biraha ku taagan Axmed Cabdullaahi Jaamac xeryaha Dhadhaab